kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee buugga sheeko-faneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud waxaanay ku bilaabmaysaa qaybta shanaad ee buuggu sida tan dhowrkii cisho ee shaqada laga nasiyay Saxarle waxay fursad u heshay in ay dib u fekerto dibna u milicsato waanadii Shamso waxay aragtay sida wajigii Muraayo isku bedelay iyo murugada iyo farxad la'aanta ka muuqata waxay aragtay Muraayo oo dhowr jeer dhakhtarka loo qaaday kadib markii uu xaaji Sacuudi habeenkii qolka kula kaliyeystay ugu dambeyntiina waxay go'aansatay in inta ay habaryarteed ka helayso inay iska dib jirto nolosha suuqa waxay doontabaha kala kulantay oo neero iskaga baxsato inkastoo neero gabdhaha yaryar iyo kuwa waaweyn kala ilaalin jirtay in ay sheekaystaan haddana ma ay diidi jirin in ay isbooqdaan ama wax istaraan mar kamid xanuunsato ama wax dhibaato ah la soo gudboonaato Saxarla oo ay ka go'an tahay in ay baxsato ayaa habeen waxa qolkii ay jiiftay ugu tagtay Shamso kadibna waxay u sheegtay go'aankeeda iyo in taladii ay hore ugu soo jeedisay ay qaadatay Shamso oo aad ugu faraxday dhiiranaanta Saxarla iyo go'aanka adag ee geesinimada ah ee ay qaadatay Saxarli ayaa markii cabaar waaninaysay qolkeedii ku noqotay isla markaana u keentay xoogaa lacag ah sidii ay hore ugu ballan qaaday waxa kale oo ay Shamso u ballan qaaday in ay korka ka ilaalin doonto habeenka ay baxsanayso si aan cidi ogaan waxa ay gaar ahaan u ballan qaaday in ay burjiko ka jeedin doonto si aanu u arkin waayo burjiko waxa uu ahaa ninka ka mas'uulka ah in uu hablaha ilaaliyo oo mid walba isha ku hayo waxay u dejisay qorshe ah in ay iyadu alaab suuqa uga dirsan doonto haddii laga walwalay in ay maqan tahayna ay neere iyo burjikaba ka dhaadhicin doonto in ay Saxarli tahay gabadh lagu kalsoon yahay oo ay soo noqon doonto waxa kale oo ay kula talisay si aan looga shakiyin in aanay wax dhar ah oo kale qaadan inta ay gashan tahay mooyaane waxa kale oo ay u keentay surwaal ka yaraaday oo ay gashanayd markii ay guriga neere timid waxa ay ku tidhi surwaalkaas hoosta ka gasha lacagtana jeebka ku rida si aan cidi u arag lugahana kor ugu laab goor casarliiq ah ayay Saxarle albaabka ka baxday iyada oo taladii Shamso ku socota markii ay xoogaa ka fogaatay gurigii neero ayay tallaabada boobsiisay iyada oo marba xagga dambe iska eegaysa bal in ay cidi daba socoto iyo in kale waxay sii biliglaysaba waxay gaadhay suuqii xamar weyne goor ay qorraxdii baalka sii dhigayso waxa markiiba ku soo ururay oo ku mataanoobay baqdintii ay neere ka qabtay in ay ka daba timaado iyo tii suuqa ay ka qabtay waxa ku soo duxay oo ay xasuusatay dhibaatooyinkii ay suuqa kala kulantay muddadii yarayd ee ay dib jirka ku noqotay sidii berigii hore ee ay magaalada soo gashay ku dhacdayna markii gabalkii dumay waxa ay dhex qaaday kumayaal dad ah oo kala carraabaya waxaana ay garan weyday meel alla meel ay u dhaqaaqdo waxayna isweydiisay in go'aanka ay gaadhay ee ay neero kaga baxsatay uu ahaa mid sax ah iyo in kale waxa ay dhex qaaday luuqluuqyadii mugdiga ahaa ee suuqa bacadlaha iyada oo dhinacyada iska eegaysa waxaa dhowr jeer horbooday oo ka nixiyay bisadihii suuqa ku noolaa sidii ay marba suryo uga laabanaysay ee ay neere isaga eegaysay ayaa gudcurkii gab soo yidhi habeenkiina aad u sii madoobaaday dadka badankiisiina suuqa ku kala carraabay kadibna waxa ay dareentay cabsi amase baqdin aan la malayn karin markii ay garan weyday wax ay samayso ayay xitaa waxay ku fakartay in ay Batuulo iyo asxaabteedii dooli iyo dhuudhi raadiso laakiin qalbigeedu uu siin waayay iyadoo ka baqdayba in haddii ay kuwaas ku lug xidhato laga yaabo in aanay dib dambe suuqa uga bixin cabsi ay ka qabtay ciyaala suuqa dartood ayay habeenkii oo dhan marba luuq madow istaagaysay si aan loo arag sidii ay u leeleelaysay ayaa aakhirtaankii daalku ku batay markaas ayay go'aansatay in ay gidaar madow fadhiisato iyada oo gidaarkii dhabarka ku hayso oo lula rukuucaysa iskana ilaalinaysa in ay gamaado si aan looga faa'iideysan ayaa waxaa bilowday roob markii uu roobkii soo daatay ayay xaggii suuqa u oroday si ay u doonato karaatoon ay roobka iskaga dhigto dhulkana u goglato
markii ay soo heshayna waxa ay ku soo noqotay derbigii ay fadhiday. nasiib darro waxa aanay ogeyn in ay degtay meel looga kala cararay mid ka mid ah daroogistayaasha suuqa caanka ka ah oo ku magac dheeraa Yaxaas. waxa ay degtay rug Yaxaas. Yaxaas wuxuu ahaa nin isaga oo aad u da'yar suuqa soo galay oo dib jir noqday. waxa uu soo maray rafaad aad u badan. waxa uu isaga oo aad u da'yar bilaabay mukhaadaraad kasta oo lagu sakhraamo. waxa uu ahaa nin aan dagaal ka bixin, ilkaha hore oo dhan iyo isha bidixna laga soo riday. waxa uu soo maray waxa xabsi magaalada ku yaala, waxaana uu ahaa nin ku nool dhac, baad iyo tuugnimo. Saxarla oo gidaarkii dhabarka ku haysa oo dugsanaysa, kana baqaysa in haddii ay jiibsato ciyaala suuqii dhibaato u geysan doonaan, ayaa waxaa soo dul joogsaday Yaxaas iyo 2 saaxiibadiisa. markiiba waxa uu ka tuuray kartoonkii ay roobka iskaga dhigaysay. inta ay naxday ayay degdeg u istaagtay. mise 3 nin oo waaweyn ayaa dhinac walba kaga wareegsan oo meel ay ka baxdaaba ma jirto. Yaxaas ayaa inta uu Saxarla 2diisa gacmood cunaha kaga qabtay oo gidaarkii ku cadaadiyay weydiiyey, "Yarey, maxaa meesha ku keenay?" iyadoo oo urtii ka soo baxaysay afkiisa ku dhowaatay in ay suuxdo ayay isku dayday in ay iska fujiso. afkiisii qarmuunaa oo aalkool iyo huura ka soo butaacayaan ayaa inta uu keedii ku dhoweeyey ayuu mar kale ku yidhi, "Ma aniga ayaad isku dayaysaa inaad iska kay fujisid?" inta uu afkii qarmuunaa oo candhuufi ka soo daadanaysa mar kale uu aad ugu sii dhoweeyey ayuu gidaarkii madaxa ugu dhuftay kuna yidhi, "Yarey, ma aniga ayaad i riixriixaysaa?" kadibna inta uu dhirbaaxo 2 indhood kaga dhuftay ayuu u sii raaciyey, "Yarey, lacag ma haysaa?" inta aanay haa iyo maya midna odhan ayuu yidhi, "Suuley, baadh sharmuutada." isaga oo la hadlaya 2dii daroogiste ee la socday mid ka mid ah. markiiba Suuley ayaa dhinacyada gacanta ka mariyey si uu u eego in ay duluca ama nigiska wax dhex gashatay. waxa uu arkay in ay surwaal hoosta ka gashan tahay. markiiba inta uu cambuurkeedii ay gashanayd kor u fayday ayuu Suuley jeebabkeedii baadhay. markiibana ka soo dhuftay lacagtii Shamsa soo siisay oo jeebka dambe ee surwaalka ugu jirtay. deedna Suuley ayaa isaga oo lacagtii Yaxaas tusaya yidhi, "Sharmuutada lacag badan ayaa haysataa." Saxarla lacagta waxaa uga darnaa in dhibaato loo geysto oo la fara xumeeyo. kelmadna ma ay odhan markii ay aragtay in lacagteedii lala baxay. Suuley oo ku farxay lacagta uu ka helay Saxarla ayaa gacanta ku dhegay Yaxaas si uu uga fujiyo. markii Yaxaas sii daayeyna waxaa gacanta ku dhegay tubaako oo ahaa tuugii kale ee la socday Yaxaas si uu isugu dayo inuu u kufsado. kadibna Suuley ayaa tubaaka inta uu gacantii uu Saxarla ku hayay ka dhirbaaxay ku yidhi, "Adigu jinni miyaad qabtaa? dhaaf, waxaan gabadh yar waaye." Saxarla habeenkaas nasiibkeeda ayaa wanaagsanaa. inkasta oo wixii ay sidatay laga furtay, balse wax kasta waxa uga muhiimsanaa in ay lafaheeda u badbaado. markii tubaaka sii daayeyna orod ayay isa sii daysay iyada oo meel ay u socotaa aan war u hayn. habeenkaas intii ka hadhay 2 indhood iskuma ay keenin. waxaana waagii u bariyey siday u socotay ee marba gidaar ugu dhuumanaysay. markii ay qorraxdii soo baxday ayaa waxay fadhiisatay derbiga masaajid suuqa u dhowaa. siday gidaarkii u fadhiday ayay ku gamaaday. waxaa hareeraha ka dhaafayay ama ku dul sheekaysanayay 100 dad ah oo aan marnaba dareen ka gelin gabadha yar ee meesha jiifta. waxay ahayd wax iska caadi ah in carruurta dib jirka ahi maalintii derbiga masaajidka seexdaan, inkasta oo mararka qaarkood culimada masaajidka maamusha ka caydhin jirtay. waxa ay nabadgelyo ku heshay in ay habeenkii oo dhanna soo jeedo, maalintiina ay gidaarka masaajidka seexato. hase ahaatee waxaa ku adkaaday in ay hesho waxay cunto, marka laga reebo hambooyinka xabxabka, muuska iyo khudaarta kale ee dadku iska tuuraan. muddo usbuuc ku dhow ayaan wax kale oo cuntaahi dhuunteeda ka degin. suuqa khudaarta oo ay ka qadhaaban jirtayna waxay uga go'day kadib markii ay dhowr jeer dusha ka aragtay neero oo ka adeeganaysa. iyada oo goor galab ah gidaarkii masaajidka fadhida ayaa waxaa ka kiciyey wadaad kuwii masaajidka ka shaqayn jiray ka mid ah. wuxuuna u sheegay in aanay mar kale derbiga masaajidka ku soo noqon, haddii kale uu booliiska ugu yeedhi doono oo la xidhi doono. markii ay yarayd ee ay miyiga joogtay ayay maqli jirtay dad la xidhay, sidaas darteedna aad ayay uga baqi jirtay in la xidho. markay Saxarla gidaarkii masaajidka ka kacdayna waxay go'aansatay inay dhinacii suuqa khudaarta isaga dhaqaaqda si ay ugu qadhaab doonato.
goor ay qorraxdii baalka sii dhigaysa ayay suuqii khudaarta gaadhay kadibna waxay dhinac istaagtay nin xabxab iibinayay oo dhowr jeex oo soo hadhay miiska u saarnaayeen oo alaabtiisii xidhxidhanaya si uu gurigiisii ugu carraabo. waxa uu dareemay inanta yar ee rafaadku ka muuqda ee xabxabka eegaysa kadibna waxa uu weydiiyey, yaray lacag ma haysataa? iyadoo hadalkiisii kululaa ka naxday welina xabxabkiisii eegaysa ayay ugu jawaabtay, maya. kolkaas buu yidhi, maxaad saacaddan halkan ka suubinaysaa maad gurigiinii aadid? intay hoos u foorarsatay ayay ugu jawaabtay, guri melihi. inta uu codkii kululaa mid qabow oo naxariisi ka muuqato ugu beddelay ayuu ku yidhi, maxaa ciddiinii ku dhacay? iyada oo weli hoos u foorarta ayay cod gaaban ku tidhi, hooyaday way dhimatay. isaga oo weji arxallihi ka muuqda ayuu yidhi, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. goorma ayay dhimatay adeer? iyada oo weli hoos u foorarta dhinacna isha kaga xadaysa xabxabkii miiska saarnaa ayay tidhi, aniga oo yar. kolkaas buu haddana weydiiyey, adeer haddaadba yar tahay ayaad la nooshahay? iyada oo weli hoos eegaysa ayay tidhi, cidna. inta uu jeex xabxab ah u soo taagay ayuu ku yidhi, hoo adeer cun. markii uu u dhiibay xabxabkii ayaa inta ay dhulka la fadhiisatay sidii bahal hilib qaydhin ah helay ku haliishay oo xoog u cuntay gaajo darteed. intii ay xabxabka cunaysay marna xaggiisa ma eegin. waxa uu arkay iyada oo macal qoloftii xabxabka jajabsanaysa. inta uu xabad kale oo xabxab ah u soo dhiibay ayuu ku yidhi, adeer iska daa qolofta oo xabaddan kale cun. haf ayay gacantiisii ka siisay iyada oo aad moodid in uu kala noqonayo. sidii xabaddii hore ayay ku haliishay, waxayna indhaha kor u qaaday ninkii oo ku dhaygagsan oo la yaaban sida ay wax u cunayso. isagoo xabad kale inta uu miiskii ka soo qaaday u taagaya oo leh, adeer ma cunaysaa? ayay hunqaaco isla rogtay oo wixii ay cuntay oo dhan soo celisay. kolkaas buu yidhi, miskiin, caloosheeda ayaa madhan. kadibna inta uu koob biyo ku jiraan u dhiibay ayuu haddana ku yidhi, afka iskaga dhaq adeer. koobkii ayaa intay qaadatay biyihii ku jirayna cabtay oo kallaacday. koobkii ayaa inta uu ka qaaday oo biyo kale ugu soo shubay ayuu ku yidhi, adeer afka iskaga dhaq. markii ay matagii iska maydhay ayuu sii waraystay, waxaana ay u sheegtay inay muddo 5 bilood ah magaalada joogtay oo ay u shaqaynaysay haweeney la yidhaahda Neero. madaxa ayuu gacanta saaray. kolkaas buu yidhi, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. adeer matiibaa ku heshay oo ilaahay kaa soo fakiyey. madaxa ayay hoos u ruxday iyada oo haa ka wada. wallee qof libaax ah ayaa tahay ayuu yidhi, isaga oo kal adayga iyo geesinimada ay kaga soo badbaaday jabkii iyo halaagii ay Neera la maaganayd la yaabay. alla iga dhasho kani iibiya heligu dhow. alla iga dhasho kani iibiya heligu dhow. xoogaa markii uu sii toyday ayay u sheegtay in ay ka timid mii, laakiin aanay hadda garanahayn dhinaca ay ka xigta meeshii ay ka timid. waxaase ay u sheegtay in ay burco baabuur ka soo raacday. kadib ayaa isaga oo la yaaban gabadhan yar ee intaasoo dhul ah soo martay uu weydiiyey, adeer aabbahaa miyaanu noolayn? inta ay hoos eegtay oo in muddo ah aamusnayd ayay tidhi, aabbahay wuu nool yahay, laakiin markii ay hooyaday dhimatay ayuu naag kala guursaday, taas oo maalin walbay garaaci jirtay. iyadoo weli hoos eegaysa ayaa indhaheeda waxa ka soo burqaday ilmo. inta uu hor fadhiistay oo gadhka gacanta kaga qabtay ayuu wejigeeda kor u soo qaaday. kadibna inta uu ilmadii ka qulqulaysay indhaheeda gacanta kaga masaxay ayuu yidhi, adeer aniguba waan soo maray dhibaatadaada oo kale, waanan ogahay dareenkaaga ee iska aamus, insha allah dhib kale arki mayside. kadibna waxa uu weydiiyey magaceeda. markii ay u sheegtayna inta uu labada garab qabtay oo istaajiyey ayuu ku yidhi, adeer anigana magacaygu waa Cabdulle, laakiin dadku waxay ii yaqaanaan oday Cabdulle. oday Cabdulle ayaa waxa uu bilaabay in alaabtiisii uu iibinayay xidhxidho si uu ugu diyaargaroobay in uu gurigiisii u carraabo. waxaana uu Saxarla ku yidhi, adeer aniga ayaad i raacaysaaye waxba ha ka warwarin. madaxa ayay hoos u ruxday iyada oo ka wada haye. bakhaar yar oo uu lahaa ayuu alaabta badankeedii ku xareeyey. xoogaa khudaar ahayd oo uu reerkiisa ugu talagalayna dambiil ayuu ku guray. kadibna Saxarla ayuu ku yidhi, soo bax adeer, waa wakhti dambe, waa intaasoo aynu bas weynaaye.
waqtigaas waxa aad cidhiidhi u galay baasiinka amase baatroolka, taasoo keentay in basaskii la raaci jiray yaraadaan, xabadda socotana qaali iyo cidhiidhiba noqoto. waxa ay sii dhex jibaaxeen boqolaal dad ah oo u badan kuwii suuqa ka shaqaysan jiray oo guryahooda u caraabaya. waxa ay sii agmareen daar weyn oo bannaankeeda dad badani ku urursan yihiin. waxa uu sheegay in la yidhaahdo shineema banaadir oo ay dadku filimka ka daawadaan. weligeed saxarli filim may arag, laakiin markii ay guriga neera joogtay ayay dhowr jeer ka maqashay hablihii guriga joogay oo ka sheekaysanaya shineema iyo filim. waxaa kale oo ay indhaheedu ku dhaceen ciyaal gidaarka shineemada fadhiya oo daasada afka ku haya. markiiba waxa ay ka garatay batuule iyo dooli, kadibna hoos ayay eegtay si aanay u garan. kabacdina oday cabdulle ayaa weydiiyey markii uu arkay iyada oo isha lasii raacaysa, adeer miyaad taqaan waxa ay yihiin ciyaalkaasi? waxay ugu jawaabtay maya. oday cabdulle ayaa haddana ku yidhi waa ciyaala suuq reerahoodii ka soo cararay oo gidaarada ku nool. sidii ay ku ogeydna waxa ay kulligood nuugayeen xabag. waxa kale oo uu u sheegay in waxyaabahay cabbayaan maskaxda dooriyo oo lagu waasho ama lagu dhinto. waxa uu ka waaniyey in aanay sida ciyaalkaas oo kale noqon ee ay noqoto gabadh sharaf leh. waxa uu u sheegay in haddii ay camaladaas xunxun ku kacdo aanay aakhiro hooyadeed arki doonin, cadaabtana lagu ridi doono iyada. ilaa intii ay ka gaadhayeen garoonkii basaska laga raacayeyna waxa uu u sii waday waana iyo wanaag tus. waxay socdaanba waxay aakhirkii gaadheen istaankii basaska oo aad loogu urursan yahay. waxay soo dhinac joogsadeen baskii kaaraan u baxayay oo uu dhinac taagan yahay nin dhalinyaro ah oo ku dhawaaqaya kaaraan kaaraan kaaraan. aad ayay dadku isku jiidhayeen oo qofkii aan xoog lahayn bannaanka ayaa lagaga tegayey. oday cabdulle ayaa inta uu saxarla gacanta la booday baskii xoog ku geliyey. inkasta oo markii ay galeen gudaha basku buuxay, haddana dabafuulkii amase kirishbaygii ma joojin dadkii dibadda ka soo gelayay ee sidii xoolaha ayuu dadkii ugu soo daabulayey. cidhiidhi iyo isriixriix ayaa bilowday. qofkii tamar yaraa iyo kii gaabnaaba dusha ayaa laga marayey. oday cabdulle ayay qaylo ka dhammaatay, waxaanu ku hadaaqayay war gabadha yar ha ku joogsanina ee xaggaas uga durka. dhowr ruux ayay oday cabdulle meeshii isku afdhaafeen oo dagaal ku dhex mari gaadhay intii uu tayar badbaadinayey. buuqa, dagaalka iyo calaacalka baska dhexdiisa ka socda waxa aad ka milicsanaysa xaaladda adag ee waddanku ku sugnaa wakhtigaasi. wax kasta oo dadka noloshiisu ku xidhnayd sida maciishadda, batroolka, daawada iyo hoyguba cidhiidhi ayay galeen, taasoo keentay khilaafkii iyo colaadii bulshada u dhaxaysay oo sii badatay. aakhirtaankii ilaahay wuu ka soo samato bixiyey oday cabdulle iyo saxarla dagaalkii iyo buuqii baska dhexdiisa ka alloosnaa, waxaana ay baskii kaga degeen suuqii kaaraan. daawadayaal, intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii 5aad ee buugga sheeko-faneedda ah ee saxarla ee uu qoray faarax maxamuud. qaybta xigta inta aynu ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh. igu onkoda aqalka magalo arxaniya daryeel badnaka ma usho. igu onkoda aqalka magalo arxaniya daryeel badnaka ma usho. iga awdan ban